qayb ka mid ah shirkii jaraa'id ee agaasimaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda waddanka Kenya ayaa waxaa ku jirta in dowladda Kenya ay muwaadiniinteeda ku jira dowladda Soomaaliya ay u digayso waxaana ku tilmaamtay in Soomaaliya ay cadow ku tahay Kenya. Waxa uu yiri Kenya waxa ay u diyaarsan tahay in ay difaacato sharafka dhulkeeda qiimo kasta oo ay ku kacayso. Waxa ayna u aragtaa dhammaan cid kasta oo ka qayb qaadatay ku xadgudubka dhulka Kenya haddii ay yihiin dad u dhashay Kenya ama haysta dhalashada Kenya iyo dad aan Kenyaan ahaynba in ay yihiin cadowga dowladda iyo in ay ka horjeedaan dadka Kenya. hadal qoraal ah oo wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Kenya ay soo saartay ayaa lagu sheegay in shirkii London ka dhacay 7 bishan ay Soomaaliya ku soo bandhigtay qariirad muujinaysa qayb ka mid ah xuduud badeedka ay Soomaaliya iyo Kenya ay ku muransan yihiin. qoraalka dowladda Kenya waxaa kaloo lagu sheegay in ay Kenya u diyaarsan tahay inay difaacato xuduudaheeda wax kasta oo ay ku qaadato iyo dadka ku lugta leh arrimahaasi. hadalka dowladda Kenya waxaa kaloo lagu sheegay in shidaalka ay dowladda federaalku ay xaraashtay ay iibsadeen waxa ay ku sheegtay shirkado ka kala socda dalalka Britain iyo Norway iyagoo oo xusay in uu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre uu yahay muwaadin haysta dhalashada Norway. waa sida ay hadalka u dhigeen mas'uuliyiintan Kenya ka tirsan. dhinaca kale dowladda Kenya waxa ay u yeeratay danjiraheedii ka joogay Soomaaliya Lucas Tombo waxa ayna danjiraha Soomaaliya u joogay waddanka Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ay ku amartay in uu ka baxo dalka Kenya Soomaaliyana uu ku soo laabto. warar haatan aan helayno ayaa xaqiijinaya in danjire Maxamuud Axmed Nuur Tarsan uu yimid magaalada Muqdisho saakana uu ka soo amabaxay magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya. si kastaba ha ahaatee dowladda federaalku weli si rasmi ah uguma aysan hadlin go'aanka ay dowladda Kenya ku shaacisay in Soomaaliya ay u arkaan dal cadow ku ah Kenya. maxamed cabdi xasan idil idaacadda iyo telefishinka dalsan muqdisho.